waxaa qoys lagu noqdaa, waxaa qaran lagu noqdaa, waxaa qof lagu noqdaa deegaanka weeye. wasaaradda deegaanka waxaa la aasaasay sanadkii 1997 kadib markii la garwaaqsaday in xaaladda deegaan ee dalku ay meel halis marayso. waxaa markaas magaceedu ahaa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, balse dabayaaqadii sanadkii tegay ayaa wasaaradda laga hoos saaray qaybtii horumarinta reer miyiga oo noqotay wasaarad gaar ah, iyadoo muddo kooban kadibna lagu soo kordhiyay qayb cusub oo ah isbeddelka cimilada. waxaana wasaaradda magaceeda rasmiga ahi xilligan yahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. wasaaraddan wuxuu magaceedu ahaa runtii sanadkii hore wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. madaxweynaha qaranku wuxuu gartay horumarinta reer miyiga in wasaarad khaas ah laga dhigo oo TOR-keeda leh. wasaaradda deegaankana magac cusub buu u bixiyay oo uu siiyey. magacaas waxa weeyaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. waajibaadka wasaaradda loo igmaday ayaa guud ahaanba ilaalinta iyo daryeelka deegaanka iyo wax ka qabashada isbeddelka cimilada, waxaanay ka kooban tahay 8 waaxood oo mid kastaaba ay u xil saaran tahay xil iyo waajibaad gaar ah. muddadii ay wasaaraddan dhisnayd waxa ay ku tallaabsatay horumar dhinacyo badan ah, sida horumarinta shaqaalaha wasaaradda si ay si hufan ugu gutaan waajibaadkooda shaqo, helitaanka gaadiid saalaha howlqabadka shaqo ee wasaaradda, furista xafiisyada gobollada iyo degmooyinka dalka iyo dayactirka kuwa dib u dhiska u baahan, dib u howlgelinta iyo horumarinta xarumaha kobcinta dhirta. 4 sano waxaanu qabanay tababaro kala duwan. tababarkaas oo ahaa sharcigii shaqaalaha aan ku tababarnay shaqaalaha iyo vision iyo missionka wasaaradda, iyo sidoo kale tababar kale oo managementka iyo maamulka ahaaba. inkastoo wasaaraddu ay leedahay gaadiid four-wheel drive oo shaqeeya, haddana waxa weeyaan shaqada taalla iyo gaadiidka wasaaradda isma laha. insha allahu meel kastoo aan u geli karno si aan gaadiid u heleynaa culeyskan saarayna, laakiin culeysada ugu badan ee wasaaradda ka jira waa gaadiid yaraan runtii. dib u soo celinta sarayaasha qaarkood, diyaarinta xeerarka iyo siyaasadaha deegaanka, diyaarinta qorshe howleedka wasaaradda iyo horumarinta xiriirinta iyo isku xidhka iskaashiga bahweynta ku howlan deegaanka iyo horumarintiisa. inaynu ka howlgalno sidii kor loogu qaadi lahaa calafka xoolaha xilliyada jiilaalka ama abaarta ee loo badbaadin lahaa xoolaha noloshooda, taasoo keentay in la abuuro sarayaashii dib loo soo celiyo. wasaaraddu iminka waxay gacanta ku haysaa 3 sare ee ugu horreeyay oo runtii laga maalgeliyey, dawladdu ay maalgelisay, wasaaradda maaliyadda ama cashuurta dadka laga qaaday lagu maalgeliyey. waxaanu diyaarinay oo la improve gareeyay oo la ansixiyay siyaasadda qaran ee deegaanka. waxaa la diyaariyay siyaasadda qaran ee isbeddelka cimilada oo aan weli iyada la ansixin. waxaa aanu qabanay 4 sano ka qabanay weliba isbeddelka cimilada shirar badan iyo dood cilmiyeedyo laga arrinsanayay saameynta ay keentay isbeddelka cimiladu iyo sidii aynu uga gaashaamo lahayn. wasaaradda oo ka duulaysa badqabka deegaanka waxay olole ballaaran ku qaaday dadka ku howlan xaalufinta deegaanka, iyadoo baabiisay dhuldaaqsimeed sharci darraa loo cotay. waxa kale oo ay dadaal weyn gelisay la dagaalanka dhuxulaysiga oo aafooyin ku ah deegaanka, waxaana howlgalladii ugu ballaarnaa ee la dagaalanka dhuxusha laga sameeyey gobollada Togdheer iyo Saraar. waxaa jirta oo aan si gaar ah u xusaya, iyadoo wasaaraddu ka shaqaynaysay horeba uga shaqayn jirtay oo muddo dheerba ay ka soo shaqaynaysay xaalufka iyo duurjoogtaba wax ka qabashadooda, ayaa haddana sanadkii 2021 dowladda Somaliland waxay aad iyo aad garab nooga siisay sidii gobolada bariga aanu runtii uga shaqayn lahayn oo aan u soo ciribtiri lahayn dhuxushaasi ka baxaysa dalka. dhuxusha dalka ka baxaysa ku soo ciribtiri lahayn. runtii 3 gobolba xoogaanu saar siibaba waxaanu saaray Togdheer, waxaanu saaray Saraar, waxaanu saaray gobolka Sanaag oo aan kharashka halkaa ku baxay aanay ku jirin barjadkaba looguna talagelin. barjadkiiba aanay ku jirin 2021 aanay ku jirin, laakiin dowlad ahaan ka soo baxday sanduuqa madaxtooyada lacagtaasi ay ka soo baxday, iyadoo iyana lagu kaabay, iyadoo oo ay xaalufka wax lagaga qabanayay lacagta noogu jirtay barjadka oo iyaduna xaalufku lagu sii kabay iyo seerayaasha. marka waxaan idin sheegaya waxaan wax sahlan maaha.
sidoo kale si loo yareeyo isticmaalka badan ee dhuxusha bulshaduna u helaan tamar badiil u noqota waxay wasaaradda deegaanku cashuur dhaaf u samaysay shirkadaha keena gaasta wax lagu karsado iyadoo heshiis la gashay qaar ka mid a shirkadahaasi si bulshada ay u gaarsiiyaan gaas jaban. wasaaraddu waxay qaybisay 20,000 oo girgire in ku dhow oo beekhamiya dhuxusha iyadoo u qaybisay gobolada dalka oo dhan. wasaaraddu waxay samaysay inay 100% qiimo dhimis ku samayso gaaska dabiiciga ah ee soo degaya lagu karsado cuntada. wasaaraddu waxay ku samaysay qiimo dhimis in ku dhow 50% iyo 60% in lagu sameeyo gaaskan haamaha gaaska ilaa 6,300 oo haamood. si kor loogu qaado wacyiga bulshada dadkana loogu dhiirigeliyo dhowrista iyo ilaalinta deegaanka waxay wasaaradda gobolada dalka ka fulisay wacyigelin ku saabsan sidii bulshada loo bari lahaa sharciyada deegaanka iyo ilaalintiisa. waxaa ka sab noqotay in wasaaraddu ka yeelato qorshe weyn oo ballaaran dhinaca wacyigelinta. waxaa barnaamijyo laga sii daaya TV-yada oo ugu horeeya TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Radio Hargeysa isaga arbaca kasta waxaa ka socda barnaamijka deegaanka. waxaa inta badan lagu wacgeliyaa dadka in la baro xeerarka ilaalinta khayraadka iyo duurjoogta, xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta andhaho iyo xeerka maareynta deegaanka ayaa aad iyo aad culays loo saaraa. Somaliland oo sanadihii ugu dambeeyay uu si xad dhaaf ah ugu soo kordhay ugaasiga sharci darrada ee duurjoogta waxa ay wasaaradda deegaanku gacanta ku soo dhigtay dad si sharci darro uga ganacsanaya duurjoogta iyadoo dhammaantoodba la horgeeyay hay'adaha cadaaladda. sidoo kale wasaaraddu waxay hirgelisay goobo lagu daryeelo xayawaankaasi. waxa waaxda duurjoogta u qabsoomay muddooyinkii ugu dambeeyay 4 sano howlgallo kala duwan oo lagu soo badbaadinayo duurjoogta noocyada kala duwan gaar ahaan nooca loo yaqaano hareemcadka oo ilaa 90 hareemcad gaadhaya. waxaa kaloo la soo badbaadiyay 370 caasho bari oo la doonayay in dalka laga saaro. waxa kale oo waxa weeye runtii gacan buuxda lagu qabtay oo la xirxiray oo runtii gacan buuxda lagu qabtay dad carab oo doonayay inay ugaarsadaan duurjoogta noocyada kala duwan. runtii howlgallada ay wasaaraddu gashay waxa garab socday oo la soo qabtay dadkii waxa weeye ka ganacsanayay duurjoogtan oo sharciga la horgeeyay oo la xukumay 4 sano oo ugu dambeeyay waxa la xukumay 12 qof oo waxa weeye lagu xukumay inta u dhaxaysa sanad ilaa 4 sano. 2022 xooga aan dulin inay dabis kacdo aan halkaan noo joogo duurjoog badan oo caawshu ka mid tahay oo garigu ka mid yahay oo la isugu wada geeyay iyagan oo laga soo ururiyay hudheelada iyo xaafadaha iyo dhulka dadkii gacanta ku hayay. halkaasna imaka iyada qudheedu loo diyaariyay inay ka sii weynaato oo iyadana wixii looga baahday xayawaan la geeyo ee la soo qabto. waxa xusid mudan geed deebla oo lama mashruuc waawaniyaduna maanta ka socdaan oo ay tahay midna in la geeyo maanta aynu arkayno oo jiitaha ama harimacadka iyo wixii lamida la siiyay oo dhulku dawladdu ugu deeqday oo madaxweynuhu ugu sii xooga sii saaray. talkalna ay tahay beertii lagu dhaqayay ayaduna dhirta oo ah dhirtii sii dabar go'aysa oo inaga sii dabar go'aysa in halkaana dhirtii lagu soo celiyo oo dhir fara badan oo kala jaada lagu soo celin doono. wasaaraddu waxay 4 sanadood ee ugu dambeeyay ay dalka ka fulisay ololayaal liberiseed iyadoo dhinaca kale dhir gaaraysa 1 milyan oo geed kala wareegtay dowladda Itoobiya kuwaas oo la gaarsiiyay gobolada dalka oo dhan. 225,000 oo geed ayaa naga baxay oo waliba intii ugu dambeysay naga baxay gobol aan la gaarsiin degmo aan loo geenin aan jirin. halkaa laga wada ray dhir Itoobiya nooga timaayeen jirtay oo teena la raaciyay markii qaybtii dambe la bixinayay la raaciyay. 13 xarumood ee wasaaraddu leedahay ee gacanta ku hayso ee dhirta lagu beeray neersariyada maxay soo saareen wax qiimo leh soo saareen. maanta 600,000 oo geed bay soo saareen. wasaaraddu waxay sanadkan hadhow lagu deeqday xarunta cilmi baarista dhulka iyo biyaha oo ay dhismaheeda iska kaashanayaan midowga Yurub iyo hay'adda FOW iyadoo dhanka kalena wasaaradda lagu soo kordhiyay 2 waaxood cusub. sanadkan dhamaaday bilowgiisii bilowday xarunta maareynta xogta dhulka iyo biyaha oo runtii wasaaradda badan midayn doona oo noqon doona resource center laga helo daatada ku saabsan maxay tahay biyaha iyo deegaanka. marka wasaaradda runtii ka faa'iideysan doona waxa kamid ah iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda beeraha, wasaaradda reer miyiga, wasaaradda qorsheynta oo ah iyadu maxay tahay mashruucan dusha ka maamulaysa. labada ku soo kordhay maanta waxa weeyna wasaaradda waxa ku soo kordhay khayraadkii badda
oo waaxa ayaa kusoo kordhay iyo fayadhowrka oo la shaqayn doona dowladaha hoose labadaasba way kusoo kordheen labadaasba waa laba waaxood oo kusoo kordhay runtii labadaa waaxood ba imika baanu dardar gelinay si wanaagsan bay u shaqeeyaan labaduba waxaanu ka filaynaa insha allah inay iyaguna noqdaan very productive ama inay wax soo saaraan. labadii sannadood ee ugu dambeeyay waxay wasaaraddu qabanqaabisay shirar doora oo lagaga hadlayay arrimaha deegaanka kuwaas oo ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. shirarka isdaba jooga ah ee wasaaradda deegaanku qabato shirarka Burco lagu qabtay Hargeysa lagu qabtay Itoobiya lagu qabtay meelo waaweyn lagu qabtay shirar caalami ah oo la qabtay oo shirar waaweyn oo wax ku oola weeye shirarkaas maxay yihiin wax weeye wacyigelin shirarku maxay noqonayaan wacyigelin weeye dadku inay maqlaan oo arkaan kii halkan ugu dambeeyay Hargeysa ku qaban doo wuxuu ahaa kii aynu kaga hadleen duurjoogta ee la isugu yimi ee shanta casho loo fadhiyay ee aynu ku baranayno shuruucda dalalka kale war dalalka kale shuruucdoodu waa sidee keenu halkuu ka qabyo ka yahay halkeenu ka soo kaabaynaa keena in baarlamaanka lagu celiyo oo sharcigeennasi halkii uu ka gardaloolo ka leeyahay ama gaab ka leeyahay in ay inoo daboolaan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu gacabina wax kaga qabanayno wasiiradda deegaankana waxaan leeyahay waad guulaysatay wax yar baa ku helay waxaan leeyahay caajista baan leeyahay halkan waxaan doonayaa inaan ka iftiimiyo si wanaagsan weliba uga sii hadlo May iyo June iyo July 3 bilood oo isku xiga ayaa waxa baxay halka May waxa baxay group dhan oo ka kooban 5 ilaa 6 qof ka kooban group 6 qof ka kooban oo iyagu tagay dalka Uganda halkaas oo ay u tageen training ama waxbarasho ay u tageen oo 20 casho ku maqnaayeen dadkaasi waxay ka kala koobnaayeen wasaaradda iyo garsoorka labadaas u badnaayeen waxayna soo baranayeen shuruucda dalalka kale sida ay u dabaqaan ay soo baranayeen way tageen 20 casho ku maqnaayeen si wanaagsan bay uga soo faa'iideen bishii June Itoobiya la tagay halkaas oo ilaa 23 qof anaga naga baxeen ama xageena ka baxeen kana kala socda qaybo kala duwan wasaaraddu ka tahay garsoorku laba ka yahay ciidamadu 3 ka yihiin iyo dadkii kale ee marka iyaga qudhooda institutionadii kale ama wasaaradii kale nala shaqeynay ay u baxeen waxa hogaaminaya waftigaasi xaga u baxay Itoobiya ee kala kashanatay ama dawladda ismaamulka Soomaalida tagay jigjiga waxa uu hogaaminayay agaasimaha guud alxamdulillah rabbil caalamiin si wanaagsan loogu soo dhaweeyay dadka halka joogay si qiimo leh ugu soo dhaweeyeen waxa la isweydaarsanaya 4 casho sidii xuduudka balooga wada shaqeyn lahaa labada dhinacba oo loo joojin lahaa ugaadhsiga iyo ka ganacsiga sharci darrada ee xayawaanka waxa ku xiga in Namibia la tagay anagu tagnay anagoo waftidayaas waxaan wafti wasiir ka kooban iyo wafti ka kooban sharci dejinta iyo haduu alla ku rooyay safiirka inoo jooga dalka Mareykanka intaadaasi waxaan soo eegaynay bal sida iyaguna Namibia ay isugu xidho ecology-ga marka laga hadlayo deegaanka iyo dalxiiska isugu xidho deegaanka iyo dalxiiska sidii la isugu xidhi lahaa ayaanu u baxnay waxaanu ku maqneen halkaas muddo 10 casho ah wax badan baanu soo aragnay dalkan ku soo wareegnay meel qiimo leh baanu u baxnay waxaana nagu casuumay halkan ugu soo dhaweeyay hay'adda CCF ama Cheetah Conservation Fund ee nala degan oo Namibia kule national parks ama dhulkii loo xayawaanka loogu talagalay oo iyaguna Namibia la jaan qaaday siday labada u miisaamayso dhinaca deegaanka iyo dhinaca iyaguna dadka dalxiisayaasha siday waxay arkayaan iyo wixii loogu talagalay inay arkaan oo ahayd deegaankay daawadaan iyo duurjoogtii oo iyaguna ku dhex nool deegaankii hees baan leeyahay heestaasi waa heesaan jeclahay anigoo keliga iska joogaan ku hees waxaa qoys lagu noqdaa waxaa qaran lagu noqdaa waxaa qof lagu noqdaa deegaanka weeye deeqay deegaanka weeye deeqow deegaanka weeye deeqay khayraadka weeye deeqow khayraadka weeye waxaa qoys lagu noqdaa
waxaa qaran lagu noqdaa waxaa qof lagu noqdaa deegaanka weeye deegaanka weeye deegaanka weeye dhalinyaradii meeday mustaqbalka mee idinkaa laydinka fadhiya deegaanka ilaalintiisa